waan ku salaamay saaxiib. Waxaad i weydiinaysaa sababma ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ii siin waayey wixii aan ka baryey. Waxaan ku leeyahay saaxiib, dhakhtarku inama siiyo daawada aynu doonayno, ee waxa uu ina siiyaa daawada aynu u baahan nahay. Laga yaabay inaad Ilaahay ka baryayso wax dhibi kuugu jiro, waxaadna ku eegaysaa aragtidaada aadannimo ee gaaban. Ilaahay subxaanahu wa tacaalaana waxa uu wax ku kala dabraa cilmigiisa dhammayska tiran. Saaxiib, ilmaha yar haddii uu arko kaniinka midabada kala duwan leh, waalidkiisna uu u diido, waxa uu u arkayaa in la iska hortaagay wixii uu u baahnaa. Waalidkiisana dhanka kale waxa uu u arkayaa inay tahay naxariistiisa qayb ka mid a. Sidaas iyo si ka wanaagsan ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ugu dabaraa naxariistiisa iyo cilmigiisa dhammayska tiran ee ka edebsa saaxiib. Amaba waxaa laga yaabaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala in uu doonay in uu ku siiyo wixii aad ka dalbatay, balse waqtigiisa aan la gaarin. wax walba inay yimaadaan xilligii ku habboonaana waa qayb ka mid a murtida Rabbi subxaanahu wa tacaala. Ogow saaxiib, waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay inaad u bislaato si aad u ilaashato marka lagu siiyo.